dagaaladii kala dambeeyay guud ahaan ka dhacay dalka ayaa dhammaan waxaa ku burburay kaabayaashii nolosha ee asaasiga ahaa sida caafimaadka, waxbarashada, biyaha iyo sidoo kale shaqo la'aan baahsan oo saamaysay bulshadii isla markaana ku keentay walbahaar nololeed. intaasoo isbiirsada ayaa ku abuuray dadka qaar fikir iyo isweydiimo sababtiisu tahay dhibaatooyinka iyo culayska nololeed ee saaran. xanuunada dhimirka jamhuuriyaddeena Somaliland marka la barbar dhigo inta ay adduunyada ka yihiin way ka badan yihiin waana 10 bilood. sababtu waxa weeyaan wadankan waxa ka dhacay 1987 ilaa 1991 dagaal ayaa ka dhacay. dagaaladaasi dhacay waxa ay keenayaan dad xilligaasi iskuul dhameynayay, jaamacad dhameynayay, dad jeclays kursanayay, dad shaqo soo waday oo mishaarkoogii ugu dambeeyay qaadanayay ayay kala haleynayaan. waxaynu filimkan ku eegaynaa xanuunka dhimirka iyo dadka nool ee uu hayo. waxaynu diiradda saari doonaa baahiyahooda caafimaad, daryeelka iyo waayaha ay ku nool yihiin. ururka dawliga ah ee Somaliland Mental Health Support oo saldhigiisu yahay Ingiriiska xarumana ku leh magaalada Hargeysa ayaa kormeer ku tegay gobolada qaar iyadoo ujeedada kormeerkoodu uu ahaa inay wax ka ogaadaan dadka la nool xanuunka dhimirka, cusbitaalada dhimirka iyo indhaynta baahiyahooda iyo siday wax u tari lahaayeen 4% ka mid ah bulshada Somaliland oo uu xanuunka dhimirku hayo. waxaa cusbitaalka Boorame ee qaybtiisa dhimirka wafdiga ku soo dhaweeyay Dr. Cabdiraxmaan Xaaji Cali Guurguurte. waa dhakhtar dhalinyaro ah oo muddooyinkii u dambeeyay ka shaqeynaya cusbitaalada Somaliland dhimirka. imikana waxa uu maamule ka yahay cusbitaalka Boorame waaxdiisa dhimirka. halka waa qaybtii ragga ee dhimirka ee cusbitaalka Boorame. waxay hadda uu furan yahay sanadkii 3aad. waxaan ugu shaqeynaa mujtamaca Boorame oo dhan ayaa loogu shaqeeyaa qaybtan cusbitaalka. gaar ahaan waxaan xoog uga shaqeynaa xaafadda la yiraahdo Sheekh Cismaan oo ka mid ah 4 xaafadood ee magaalada Boorame. cusbitaalka Boorame qaybtiisa dhimirku waxa uu adeegaa ilaa iyo in ka badan 500 oo bukaan jiif ah, balse waxaa jira ilaa iyo 2,000 oo qof oo kale oo ay ku daweeyaan guryahooda. waxaa ka howlgala shaqaale neersan ah oo ka warhaya dadka dhimirka qaba ee guryaha lagu hayo isla markaana siiya dawooyinka xanuunkaas loo cuno. waynoo sheega wax goorana waxaan haynaa ku xanaaqa, waxaan haynaa ku dadka dila, waxaan haynaa ku madaxo xanuuno, ku aan cuntada cunin, ku miisaankiisu wax iska sii bedelaya, ku qaadka aad u cuna. marka anagu waxaan u qabnaa inuu dadkaasi ay yihiin dad jingalay oo balmoodaynaay inuu xanuun maskaxda ahi hayaba uma haysano. deetana waxaan ku konsol gareynaa ama talo ku siinaa ka warrama haddii aan dhakhtar u geyno. dadku marka hore way yaabaan dhakhtar aan u geyno, laakiin maalin kaliya dee kuma ogolaadaan. maalinta hore markaan u sheegno haddana waan ku noqonaa, marka dambe alxamdulilah way noo joogsadaan. dhakhtarkana waan u geynaa. dhakhtarku markaa wuxuu noogu yimaadaa isaguna outreachka oo weekii 2 maalmood buu noo yimaad. cusbitaalka Boorame qaybtiisa dhimirku ayaa waxaa ka jira baahiyo badan oo ay ka mid tahay dawooyinka oo ku yar, raashinka oo ku filayn iyo qolalka lagu hayo bukaanka oo cidhiidhiya. waxaanu la kulannay maalintaas Muumin Maxamuud oo muddo 2 bilood lagu daweynayay cusbitaalka, imikana caafimaaday. dhakhaatiirtuna u sheegeen inuu ka bixi karo cusbitaalka. muumin isagoo faraxsan waxa uu mahad celinayaa dhakhaatiirtii gacanta ku hayay waqtigii uu ku sugnaa cusbitaalka oo runtii iyadoo duruufo badan ay ka jiraan cusbitaalka haddana marna aan laga caajisin u adeegida bukaanka. dhakhtarkan waxaan ku jiraa in 2 bilood marka in xanuun aad u fara badan baan qabay. marka waan cararayo, hawdkan gelayo, waan baxsanayay. marka la soo qabto kolka dadku wuxuu ii walahaa inuu dagaalamayo dunida bahay dagaal ka socdo baa leeyahay. marka waa la soo qabtay, dawooyinkii la siiyay waan ku qaboobay, waan ku bogsaday, waan qaboobay, happy baan noqday. marka waxa la siiyay ciidiin ah soo marnay wanaagsanida ciidal
ciidii fiicnayd ee barakeysnayd dhar bayna siiyeen laba maalmayna kala siiyeen dhar bayna siiyeen marka waan ka guddoonnay dhakhaatiirteena mada shaqaalina aad bay noogu fiican isla magaalada boorama waxaa kaloo aanu kula kulnay dadka xanuunka dhimirka qaba ee lagu hayo guryaha ubax cali ciise waxaa xanuunsanaya oo meel ku wada xidhan aabbaheedii hooyadeed inkastoo ay ka cudur daaratay ubax in la sawiro balse waxay noo ogolaatay in sawir laga qaado waalidkeed oo iyadoo ay gacanta ku hayso ubax waxay ka codsanaysaa ummadda muslimka ah inay ka caawiyaan caafimaadka iyo daryeelka waalidkeed imika halkan labadan waalid aynu ka dubnay documentarigan maanta aynu ka sameynay filimkan labadoodaba waxaa jooga oon jaanis u helnay inaan la kulmo inantoodii ubax cali ciise arbe oo inan yaroo ah 19 jir imika 20 gelisa waa inan yar habeen iyo maalin iyadii walaalaheed ayaa haya iyadaana u badan halkii hablaheed qeydha ay jaamacada kaga jiraan wax ka baran lahayd ama ka shaqo tagi lahayd 24 saacadood halkaas ay ugu xidhan tahay wadarkiisan nolosha ku nool yihiin baysiga xaliyaalo waxay haystaan ma jirto way ka cudur daaratay way diiday kamarada in laga duubo aniga iyo wakiilatay ay ugu tiri warayso tana u gudbi shacabka Soomaaliland halkani waa cusbitaalka guud ee magaalada Gabiley 2011 bay ahayd markii la bilaabay dhiska qayb ka mid ah waararka loogu talagalay bukaanka dhimirka waxaa gacanta ku haya urur dhalinyaro ah oo u dhashay deegaanka Gabiley oo loo yaqaano Samakaal oo isu xil saaray ururinta qaadhaanka lagu dhisayo qaybta dhimirka waxaa lagu aasaasay loo qorsheeyay markii la arkay gobolkan deegaankiisa aad u ballaaran dadka maskaxda ka xanuunsanaya oo rag iyo dumarba qayr caadi ah ayaa ay nagu kaliftay anagoo ah dad ganacsataa oo gobolka ku nool gudihiisana ka ganacsada inaanu ka damqano oo aanu dhibaatada haysato walaalaha iyaga ilaahay maskaxdoodii uu ka qaaday ee dibadda jiifa intii aan ehel lahayna roobka iyo cadcad dibadda ku hayso inaanu ka damqano oo wax u qabano oo wixii karaankayaga aanu kacno oo aan dadkan u dhaxmarno jeebadeedana waxaanu ka saar kareyna ka saarno ayaa waxaanu garanay inaanu bilowno dhakhtarkan dhimirka guud ahaan cusbitaalka Gabiley waxaa la dhisay 2010 qalabka iyo adeega ay fidiyaan wuu kooban yahay ama kuma filla bulshada ku nool deegaankaas mudooyinkii waxa weeyaan hawshu way soo badanaysaa baahidu way badanaysaa halkii 2011 la joogay maanta lama joogo waa 2011 wiiga dhan waxa soo gali jiray qof laba qof saddex qof laakiin imika waxa laga yaabaa maalintii inay soo galaan 5 qof in maalintii soo galaan marka baahidii maalinta la hayay maanta waxa weeyaan double bay noqotay triple bay noqotay oo sii badatay maadaama aanu haba yaraatay wax adeeg aan oo fidin qaybta dhimirka ee cusbitaalka Gabiley waxaanu isku daynay inaanu booqasho ku marno bukaanka dhimirka ee guryaha lagu hayo si aanu ogaano xaaladda dhabta ah ee ay ku sugan yihiin muumina daahir waa hooyo 5 ubada leh 4 kamida ayaa xanuunka dhimirku muddo badan hayay waxay ku nooshay deeqaha ay ka hesho deriskeeda oo runtii gacanta ku haya ma hesho wax dawooyin oo siin lahayd ubadka ka xanuunsanaya cid kale oo ag joogtaana ma jirto waa itaalkaygu u liitaa waxa weeyaan dawo ma awoodi karo 4 caruuraan haystaa 4tii caruuraha way iga wada bukaan itaal malihi ilaahay baa itaal 4tii way iga bukaan sidaasaan waan iska barakaysan sidoo kale Aamina aadan odawa waxay la tacaalaysaa walaalkeedu 34 sano xanuunka dhimirka uu hayay qoys ahaan waa reer jilicsan oo danyar ah ma awoodaan iibka dawooyinka dhimirka loo cuno waxay u dadaashaa sidii ay u heli lahayd quutal daruuriga walaalkeed iyo qoyskeedaba
axmed owaadan wuxuu ka mid yahay halgamayaashii halgankii hubaysnaa ee snm in ka badan 20 sano ayuu guriga ku xidhnaa fadhigii badnaa ayuu markii dambe ku waayey awooddii socodka waanu curyaamay إنك الواحد ويا إن بدل أي حمسيني لما يقول عليه هرنا ولا يسوون إنتهى يسوونه سدوا سوا وحنا markii cid wax qabata iyo wax xasoo waay yadna way curyaamay markaa kicitaanku wuxuu ku tagayaa si dhiba ayuu halka kale ku tagayaa waa kaas wax waasana ma jirto dadkaas noo joogo guryaha oo baahan gurmad ilaahay kasoo kale guryaha meel dhaliyay waxaan jeclahay dibadii gudaha adii dimiir reebay dadka ugu soo dambato kooga waa cusbitaalka dhimirka ee magaalada Hargeysa wuxuu qayb ka yahay cusbitaalka guud ee magaalada baahida iyo culayska ka jiraana wuxuu kala mid yahay cusbitaalada kale ee aanu soo aragnay ururka Somaliland Mental Health Support iyagoo dareemay baahida ka jirta cusbitaalka guud ee Hargeysa waxay ka fuliyeen mashruuc baahi weyn loo qabay oo ahaa goob cunada loogu kariyo bukaanka dhimirka ee cusbitaalka yaala waxa mashruucan kala qayb qaatay urur ay qayb wadaag yihiin oo loo yaqaan Nasteexo oo iyaguna ka shaqeeya taakulaynta dadka uu haleelay xanuunka dhimirku runtii waxaan ka wada shaqeynaa arrimahan la xiriira ama ku tacaluqa xanuunada dhimirka runtii waad aragtay wada kitchenka halkaa ku yaalba iyagaa noo dhisay markii horena ururka Naseexo iyo ururka Guddoon labadaba dee iyagaa soo caawinayay intii aan iyagu goonisu taagin markii dambe annagaa isku filan gudaha iyaga ka sameynna bidhaayeen runtii ururka Naseexo oo uma hadnaqaya iyo ururka Guddoon oo runtii haddaan imika telefoonka qabso baahi jirta isbitaalka hadda way keenayaan baahida jirta oo si ugu dhag nugul yihiin oo kale ama isbitaalkan dhimirka ay ugu dhag nugul yihiin oo kale maan rag runtii cid kale ugu dhag nugul oo runtii iyaga aad iyo aad halka uga amaanaya hablaha Naseexo iyo Guddoon magaalada Burco caasimadda labaad ee Somaliland waxaanu ku hagaagnay cusbitaalka Maandhaye cusbitaalkani waa ka madax bannaayay cusbitaalka guud ee Burco wuxuu gacanta ku hayaa bukaan jiif badan iyo bukaan kale oo guryaha lagu hayo iyadoo ay sabab u tahay xarunta oo ku fuleen awgeed tirada dadka uu gacanta ku hayo cusbitaalku wuxuu gaadhayaa ilaa 8,000 ruux oo ku dhacay xanuunka dhimirku runtii magaalada Burco waa magaalo madax labaad ee Somaliland waxa weeyaan waxay capacity badan bay leedahay oo dad badan bay qaadaa dadka markaa man dhibir ka xanuunsanaya markaan anagu approximately ku sameynay 8 sano meesha shaqaynaysay waxay noqotay inay 15% ilaa 10% yihiin dadka xanuunsanaya macna way ka garan kartaa populationka marka la eego boqolkiiba inay 10 xanuunsanayaan si kasta oo xanuunsadaan ay xanuunada dhimirku kala duwan qaar baa noloshoodiisa kaga jira caadiga ahayd dharkoodiisa laakiin aan mentally fit ahayn qaarna dad violence iyo kacsan ama qaawan ama dagaalamaya marka runtii markaan isla eegnay dhakhaatiir badan istimid gareynay qiyaas aan ku doonay cusbitaalka Maandhaye waxaan qiyaasnay inay 10% ilaa 7% meelaha yihiin dadka maskaxda ka xanuunsanaya Aamina Haybe waxay la dhalatay 2 wiil iyo gabadh intoodaba waxa ku dhacay xanuunka dhimirka cusbitaalka Maandhaye wuxuu ku dadaalay inuu guryaha ugu geeyo dawooyinka isla markaana lala socdo xaaladda caafimaad ee dadka xanuunsanaya
waa 3 caruur oo dhalasho isku xiga 28 jirka iyo 26 jirka iyo 24 jirka dhalashaana isku xigan waa laba inan iyo inan marka muddo imika aan ku qiyaasay taariikhdu way iga khaldan tahay 13 sanadood ayay laba xanuunsanayeen midna imika ilaa 3 sano ayuu isaguna ka soo daba dhacay laba koobi karo dhibta iyo silac ay ku nool yihiin dadka la nool xanuunka dhimirka waxay baahi badani ka jirtaa dawooyinkooda daryeelkooda iyo hoyga lagu hayn lahaa oo meelaha qaar cidhiidhi ku ah Somaliland Mental Health Support waxay tunka u ridanaysaa sidii ay ugu baadi goobi lahayd kaalmo iyo dawooyin la siiyo dadka xanuunsanaya anaga waxa noo qorshaysan qodobo runtii insha Allah halkaan idinka sheegi doono oo dhowr ah marka ugu horeysa ma nihin inaanu anagu arintaasi kaliya iyo madaxa u ridanayno laakiin waxaan rabnaa cid kasta oo arintan ku shaqo leh oo ha ahaato dawladda ha ahaato dad shakhsiyaad ah ha ahaato ururo kale oo ka shaqeeya in aanu wada shaqayn buuxda yeelano ayaan rabnaa arrinka ugu horeeya kaas uu noqonaya waxa kale oo aanu dusha u ridanayna insha Allah in aanu dayac tirno meel kasta oo maxaan raadaan amba gobol kasta oo marka uu ka jiro dhakhtarro hore loo dhisay laakiin u baahan dayacaad in la dayac tiro ayaanu insha Allah dayac tiri doonaa waxaanu samayn doonaa gobolada aan lahayn meelo dadka lagu daaweeyo oo dhakhtar aanay ka jirin sida Sool iyo Sanaag oo kale oo ognahay imika aan goobo caafimaad oo gaar ahaan dhimirka inayna ka jirin insha Allah inaanu labada gobolba si gaar ah aanu uga sameeyno insha Allah mustaqbalka dhow ayaanu rajaynaynaa Isbitaalada Somaliland waxa iyaguna culus ka saaran yahay daaweynta dadka xanuunada kale la ildaran inkastoo dadaalkoodu aanu yarayn haddana waxay u baahan yihiin gacanta dadweynaha ganacsatada iyo qurbajooga Somaliland sidii loogu caawin lahaa adeegyada kala duwan sida dawooyinka dhimirka dharka cunnada iyo hoygii lagu daweyn lahaa meelaha ugu sii waaweyn wax ka jiraan waalida iyaba ugu sii daran oo had iyo gooraale dad waxa jira waalan oon cid lahayn oo suuqii cararaya dad kale ee waalan oo dad leeyahay dadkoodii joogaan baa jira haddana awood aanay u lahayn inay dee maaragtay iyagu wax u qabtaan oo ay wax qabtaan dhinac kastaba ha ahaatee waxaa lagula soo cararaan loo keenaan waxaa weeye isbitaalka inkastoo aanan gaarin cisbitaalada Sool iyo Sanaag haddana xogo rasmi ah oo hel waxay sheegayaan inaan haba yaraatay wax cisbitaal ah oo dhimirku leeyahay aanu ka jirin magaalada Laascaanood iyo Ceerigaabo haddaba muwaadin ka qayb qaada waxtarka iyo taakulaynta dadka la nool xanuunka dhimirka sadaqada aad la baxda waa mid aad aakhiro dhigatay oo ajar iyo xasanaad aad ku helayso caawi dalkaaga oo caawi bukaanka dhimirka